barnaamijka Sawlayaab maahan part 2 Sawlayaab maahan in Aziz oo ah mid kamid ah dhaajismaalayaashii ugu horeeyay TikTok uu ku dhow yahay inuu ku dhawaaqo shaqo joojin sabab la xiriir lockdown ku yimid fiidiyoyaashii culus isku daysi afbali banaanday Sawlayaab maahan in cayuun qurux ay tahay modelka kaliya ah ee wajigeedu uu uga muhiimsan yahay inta kale ee jirkeeda Sawlayaab maahan in shan leyste oo ah nin ku guuleystay Blue Tick Oro uu halis ugu jiro in lagala noqdo maadaama uu joogto waay talentigiisa dhaqaatiirta TikTok indhihiisa ay shaki aad weyn ka muujiyaan Sawlayaab maahan in tariig oo ah qof taariikh dheer magac ay taageerayaal badan ku leh TikTok ay mar qura ka soo muuqato kulamada slow motion-ka ee ka dhaca goobaha aan sharafta badan lahayn ee maxaad soo xasuusataa markii aad aragto part 4 fikir waali ah fajac iyo ama kaag fiidiyowga ma dhamaaday iyo ma anfaqayo cali waji daandaansi been ah iyo 90 dumaashi loo gaardiyo oo war loo qaado aan waxbana laga keenin daljir Cusmaan waji mar aad moodo mooryaantii hore ee Soomaalida marna aad moodo miskiin cid martuu ah ugaas cali hal balon or oo loo ilduufay iyo indhagidis joogto ah shan leyste talent ayaad leedahay haddii aad fahantay qof kula kaftamayo inuu yahay qof ku jecel waa barnaamijka kaftanka xaqiiqda youtuberada part 2 macluul maskax iyo madaalad badan oo aan miisaan dhaxal lahayn sidii wax masqanini inuu yiraahdo hooyoy warsanay liicad taag aan dhamaanayn hoos ruweelkan gasho waalnaa ama fiyoobaha sax iyo qalad waxba igama gelin ee waa sideen views ku helaa durdurmeedii iyo xasan top waa hormuudka youtuberada iyo haliyay ku dayasho mudan hello man what's up man asad xaajiyo man ilmo yar oo active ah adno aan ka liidanaya abood famil wada atoryaal ah awoodda shacabka oo YouTube ku heshiyay adna channel af macaani iyo aqyaarnimo jawi degan iyo jacayl shaqo iyo jilin laga dhigo rashka boy waa barnaamijka kaftanka xaqiiqda youtuberada part 3 xiriir views iyo lacag lagu raadiyo gobonimo doonka YouTube ee ku soo caanbaxday musalsalkii ka nasiib ka nasaar نجوع رالي جلجليع سائد أسيدي هندي وأكتر كي أهلا تريشة في عمل فيلم كلاجشة وي فنس كي وصوبت أن فمي الأنغضي نور الدين كيل هذا القوس يا صاحبتي نما عن سلع رفاض لومرين وناق يحما وحول بو دعوة برنك يبين لي سكور عساني هاي كمال عبد اليتيم انجويا شعترول هوري وشعبيت بدن له وحول بولي هذا كوري ماذا كليجيس مسكين ومعناها عن ميد لبعض أقولين أبها أكتر كي هوري اسم دانتو رتول أهي مودلك يوتيوب كي مدحيسو اسم تمدى حال هين أبوان فنان يوتيوبر جيسي إله النوال يا نوار وكفتنك حقيقة يوتيوبر ردا بارت 1 ومسكين كي يوتيوبر ردا ضد بدن أو كاميرا كلي كي قانانا أي مودان منافق يميد إسلوين منير أقا ما قرناي إنكراد أوجدي اسمايس مروا بالدقالة دياروها إيه وسود دقين درس العبدي إن دفقيق أضيني لقى بين شيء تاجر كلية أنا وحبرن بس كو قربت مشرح بقى هشيلهم كرهبي شيني علي هذا اللي سكدر در حكمة حبت كجرنا جلين بين أهوالتا وأستانت يوتيوبر ماليزيا أرمي هنا المهم مساكين أو لقوا على إلا بوحي اللي وشك شرفنا مي إلى شكرتي اسمه دانتو ninkan waa karbash xalaal oo la og yahay inuu yahay mucaarid ku weyn ay leeyihiin rag is cadeey waxa hadda wajigiisa laga helay maadooyinka la isku cadeeyo ee iPhone-ka looga been abuurto ilaahu nawaa ninkan waa jag waana wiilka haysta taageerayaasha ugu badan ee gabdhaha balse wuxuu dhammaan taageerayaashiisa ku kasbaday quruxdiisa oo ilma qabata ah balse afka aad looga buunbuuniyo ilaahu nawaa gabadhan waa Nawaal Maxamed oo ah fanaanad jiifka uu la mid yahay soo jeedka waxa mar qura ka waala gudiga commentleyda ee talanti ay leedahay markaas waxay soo bandhigtay muuqaal aan hore looga baran ilaahu nawaa ninkan waa Larsin oo aan ognahay in cimrigiisa ay macluul la qaybsatay waxa hadda la soo xaqiijiyay inuu si qaldan u isticmaalo maadooyinka wajiga macluusha ka saartay ee Big Power ilaahu nawaa وبرنامجك كفتنك حقيقة فنانينتا بارت 5 حركة والي iyo cod xalaal ah fanaanka heesaha ku xadreeyay ee aad muddo markuu heesayo inuu qof meel dheer taagan u qayl dhaaminayo Suldaan Seeraar jimicsi iyo jirdhis la'aan waa fanaanka ugu macluulsan fanaaniinta Soomaaliyeed waana fanaanka kaliya ee guuxa codkiisa uu ka miisaan badan yahay muuqaalka jirkiisa safaan hala fanaanka markuu heesayo u labistay sida madaxweyne qudbeynaya iyo gudoomiyihii hore ee golaha bidaarlayaasha haddana timihiisa korkor u shanleysta Axmed Saki fanaanka heesiis loogu xiriyaa sida musalsalada magacyadan ugu bixi sida filmaanta Bollywoodka askari jacayl gale foolxumo inkaar ku dhacday faqiir jacayl gale Cabdirasaaq Anshax فيديو فيل درن دوبة فنك فول حماية فلات بدنة فنان كلي أو هرك كرتيس عن سكول الموسيقى فيديو دوبست سلعة لغات ويلك كوجر رمى عجبر والباقي الصوماليات مرسل فلدان وبرنامج ككفتن كحقيقة فنانين تا بارت 4
legend aan da'yarayn balse uu jab yar sida ilmo uur ku jira fanaanada ficid ka gaaban ee codkeeda macaan heesaha koobiga uga faa'iideysata qaaliladan fanaanka timaha weyn aan weligiis timajaraha tegin iyo wiilka heesaha dadka ugu oysiiyo nimcaan hilaac fanaanka erayada kala bax qalbiyada abwaaniinta ee aan heesiisa u madax banaanayn oo mar walba lagu qabsado 17 jirka uu jooga dheer sida 30 jirka marwaan yare isbeddelku waa muhiim wiilka la yimid laxanka ooyinta ee u jaas sida Michael Jackson fanaanka heesiis xitaa ajaanibta ay fahmaan maslax mideeye mar la arag fanka iyo xidig aan marqaati u baahnayn wiilka markuu ciyaarayo aad moodo askari gaardinay iyo fanaanka kaliya aan ka walwalin cidii heesiisa laxmeeleed guuleedsinba